ee magaalada Gaalkacyo wasiirada ayaa booqashadeeda waxa ku weelinayay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo xubnaha wasaaraddaasi. Wasiirka ayaa u kurgaleysay sida ay u shaqeeyaan xarumahaasi sidoo kale xaaladda caafimaad ee dadka bukaanada ah. Nicme Maxamed Catoosh wasiirada caafimaadka Galmudug ayaa sheegtay in dhammaan xarumaha caafimaadka ay booqashada ku sameysay ay ku sugnaayeen dad badan oo cudurro kala duwan u yaala. isla markaana waxa intaas ku dartay in dadkan ay u baahan yihiin gurmad danka dawooyinka iyadoo sheegtay in ka wasaaradahan ay gacan ka geysan doonaan. aan ku soo gaarnay 2 usbuuc ah hay'adaha caafimaadkan aan ku kormeereynay iyo hay'adaha qaxootiga ee dhibka ka jira magaalada Gaalkacyo ee Mudug. maanta waxaan soo gaarnay MCH-ka South Gaalkacyo oo saa u arkaysaan dadweynaha ku nool dhinacaan oo dhan ay gaarayaan tiradooda almost maanta 100 qof waa aragnay 100 caruur iyo 100 haween ay wax ka qaataan usbuuc walba xag caafimaad iyo xag meel ay ku dhalaan meel nutrition-ka laga siiyo. marka waxa noo muuqato MCH-kan inuu aan laga maarmin haddana ay shaqooyin badan ka kala socdaan. waxa ka socdo Gaalkacyo ma soo koobi karno shuban biyoodka nafaqa darrada jadeecada 100 cudur ba isdaba ordaayo dhanka Gaalkacyo intaan meel kormeer soo marnay. maanta se waxaan ku soo xireynaa kormeerkeeni MCH-kan South Gaalkacyo ku yaalo saad u jeedaan waxa isla kaashada MCH-kan dhisay UNICEF iyo SDRO hay'adda la yiraahdo waagi la dhisay gaabo badanna wuu soo galay oo hay'ado badan oo wax siin jiray ay ka joojiyeen. haddana alxamdulillah wax yar oo IOM ay bilaabeen 15 May kuna 15 July oo aan rabno insha Allah meeshiisa dad badan oo client ay jiraan ay la socdaan caruur badan lagu daaweeyo meeshan hooyooyin uur lagu daaweeyo Allah inaan